السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورودين سلام يا دمانتي بالصومالية aad baan idiin salaamaya walaal horta waxaan arkay mataqaaneen ilaa shalayto waan eegayay dadka hees baa daahagaas nin laydhaa soo sameeyey abwaanka daahe waxaa la qaaday halkaasaa laga qaaday habaa la qaaday maba xumee reexa markii allah hayaay heesa soomaali bay etoobiyan ka xigsadeenay barraq haba yidhaahdaan iyaguyo de iyagu awalba wax somalilan usoo kordha iyo wax la yidhaahda iyo waxaas iyagu afkooda af juuq waba juuq dhowro afkayga ilaalinayaane waxaan la yaabay horta heesta markaan anigu reaction ka bixiyo heestaasi waxay hees garnaqsi ah in ay ku garnaqsatay somalilan yacnaa inaad cadow adiga ii tahay nabadna aanad ii ogolayn nololna aanad ii ogolayn laakiin ninkasti aanu darisnahay dee oday baaba ka gabiyey mar horaaba laga gabiyey badee kowdhe marka waxa weeye qof kastaana qofka u dhow naf waliba nin u roon raacday baa la yidhahdaa somalilan waxbay tirsanaysay wixii lagama raali gelinin wixii wax oo ogoli ma jiraan wax loo ogol yahay ma jiraan maantana haddii la helayo naqaska neefta waa laydinka wada jar lahaa hadday awood u leedahay dadka eeg shacab waa shacabka soomaaliyeed meeluu joogo iska masaakiin iyagu laakiin siyaasiyiinta xamar jooga hadday helayaan inay somalilan hal habeen bay odhan dadkaba wada suuxiyo ka wada saara neefta bay odhan lahaayeen anigu markaa maba la yaabin horta xamar hay maagto ha tiraahdo waxbay sameeyeen laakiin dadka reer somalilan ee waxaan la yaaba maangaabka ah ee iyagii isku mucaarada hadda waa iyagii baa isku mucaarada iyadii waa lagu wada mucaarad iyaguna iyaga isku mucaarada hortan muwaadin iyo bay kala saartay iyo bilaa muwaadin bay kala saartay heestaasi anigu heestaa garnaqsi baan u arkayay ceebna uma arkayn sababtaan ceeb ugu arkayn waxay tahay waa idiin sheegayaa horta xamar hawiyo xanaaqsan mar hawiyo idinku horta de xamar waxaad tirahdaan waa hooyadii soomaaliya cid walbaana joogtaa hawiya daarood iyo isaaqba waa la joogaa inta somalilan kasoo horjoogto dhan baa joogtaa markaa idinku waxaad doontaan baydhaha laakiin kuwa isaaqa su-aal baan weydiinayaa hal su-aal baan rabaa inay iga jawaabaan su-aasha iga jawaabaysaan waxay tahay horta soomaalinimadu ma aday kula dhalatay ma keligaabaa soomaali ah dadka kale soomaali maaha miyaa marka adiga lagu maagayo lagu soo duliyo soomaali maaha miyaa marka lagu leeyahay soomaalidiid baa too wadankaaga lagu gumaysanaya soomaali maaha miyaa markaad calankaaga la cararaysay wadanka soomaali horta soomaali waxaan ba ogaadaa dad reerka keliya jeceliba inay reer somalilan yihiin laakiin waxaan idiin eegayaa wax baro oo fakerka iyo fahan waxyeelo etoobiyaan baa laydinku caya etoobiyaan baa raacdeen etoobiyaan baa caynkana oyaan etoobiyaan la wadan askari quro etoobiyaan waddankaaga ma joogo haddaad somalilan tahay askari quro oo somalilan wax warqad lagu soo qoro etoobiyaan soo qorana waddanka ma soo gasho xamarra way soo gashaa 50 kun oo ciidana xamar jooga oo gobolada dhexe jooga caawida qashari xool lagu qalqalayay dani waa u tago garacad buu la doonayay xasan sheekh barawiye markuu la doonayay bal etoobiyaan dadka kaleba waa rabaane adiga taada oo wax kaa soo gelayaan oo lagu war lagu ictiraafayo ictiraafkaanu kula raadinaynaa oo waxbaanu idinku qaban aad tidhi maxaa dhayda kaa lisay ee taada shaarac keenay bal waxa taada shaaraca keenay ee tooda qariyay ii sheeg bal su-aashaa qura bal dadka weydiiya etoobiyaanka soo saara dheh annagu de lama joogin waanu badda soo baxa waanu joojinana badinku soo saara etoobiyaan baa la wada rabaa etoobiyaan baa loo wada dagaalamayaa etoobiya loo wada ordayaa kan hore kala dhuumanayaan kala soo cartaa la wada hayaa aniga ii kaala laakiin idinka jambal baa laydin hor tuuraa bilaa caqli iyo bilaa aqoon baa tihiin ma awoodaan inaad fakirtaan oo tahda warheedhe maxaa khaldan de waay aniga nolosha maxaa la iigu diidayaa wax kastoo waddankiina kasoo bax waa la buunbuunaya bilaaya laga dhiga bababababa markaas dina qaar qaadban haaguyaay jaahilnimo aqoon darro fikir la-aan cadownimo aad qof ku cadow uga noqotay yacnaa cadowga waddankaaga waxaad ugu noqotay nacayb hal qof baad cadow ugu noqotay waddankaaga aad baan uga xumaa reer somalilan aad baan uga xumaa laakiin waxaan jeclahay gungumayaasha soo baxay inay soo baxaan baa fiican anigu soomaaliyay ma run baad doonaysaan ima jeclidin ana idinma jecli siyaasad markay noqoto
ima jeclidin ana idima jecli laakiin soomaalinimo markaan inta isdhex qaadana waan isdhex qaadayna laakiin waxaynan adigu aanan samayn oo aanad ii ogolayn ha ila iman aniga kaana yeeli maayo dii lama caqli liya anu aqoon baan leehay caqliga saa tihiin yaa waalantihiin waalanimo yahow aynu kala xaabno nin walaba buulkaaga yarad haysato xaadxaadho halkaagaad ka adkow soomaali way kala tagtay xamar way kala tagtay 5 dowlad baa ka dhisan dowladna dowlad ma xukunto odayna oday ma xukumo nin walba isaga gaarkiisa isu maalmuula ma fahanteen tanna yadaa gaarkeeda isu maamusho idinka tagtay markaa nin walba danayso buulkaaga yar xaadxaadho baay ina kala kaxeeya